jireen laba gabdhood oo bartaa lagu gowracay laba gabdhood ma dagaalamay labada gabdhood war manuur cali cumar bartaana lagu gowracay ibraahim cabdille ma dagaalamay دواء بالرقيس هدي مقالة هاد يهدي مي هاد وحلا وحي يا لوي بالرقيستين وحا يركن وادلين إلهي علمي بي كل جيران وماشي صاد أركي صاد صدح تلاوة صدح إلى روحه ku jira carruurtaas yaryarka ah ay ugu dhaqan adeeryaashood iyo aabayaashood iyo awooyaashood waaye meeshaan adiga duleedka ka xigta gabdhaha ku jira carruura ku jirta waayeelaa ku jira reebaba ku jira taas maalintii madoobeed aan u naqaanaa mugdiga ahayd ilaahay baan soo dhaafiyay uga dhacdooyinkii sababay colaada muuqaalkan iyo kuwa kaleba waxaanu kaga hadli doonaa idanka eebe colaadihii lagu xasuuqay dadka shacabka ah ee deegaanada ceelgaab waxaan mid dul istaagi doonaa su'aalahan soo socda yaa ka talin jiray deegaanka ceelgaab ka hor xukuumadii cabdi ilay siday ahayd nolosha deegaanku lababaar iyo nawaaxigeeda kadib imaanshihii ciidanka liyu booliska maxaa iska bedelay maxaa sababay dagaalka iyo su'aalo kale wixii ka horeeyay nidaamkii cabdi maxamuud cumar nolosha bulshada lababaar iyo nawaaxigeedu waxay ahayd mid degan dadkuna waxa ay lahaayeen maamul iyo nidaam ay raalli ka ahaayeen waxaana jiray maamul iyo guurti dhaqan oo gunta xaajo kasta gaari jiray amniga deegaanka waxa iska kaashan jiray shacabka iyo maamulka magaalada markii laga soo tago colaada beeleed oo iyaguna ahaa kuwa xal laga gaari jiray deegaanku waxa uu ahaa mid nabdoon balse maxaa isbedelay dabayaaqadii sanadkii 2010kii waxaa deegaanku martigeliyay ciidanka gaarka ah ee liyu booliska kuwaas oo ka amar qaadan jiray xukuumadii cabdi ilay waxay fariisimo ka sameysteen lababaar iyo deegaano kale oo hoos yimaada dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanku waxay ku soo dhaweeyeen si dhiirnaan ku jirto iyagoo haminayay himilo dawladnimo hase ahaatee xaalku sidaasi uu iska bedelay oo maxaa dhacay bilo kadib ciidamadii loo daninayay ilaalinta amniga waxa ay bilaabeen falal abuuraya jawi colaadeed dhowr dhacdo oo ay sameeyeen ciidanka liyugu waxa ay dhaliyeen kacdoon shacab hase ahaatee waxgaradka deegaanka ayaa dadaalo ay sameeyeen ku dejiyeen xaaladda deegaanka falalka ay sameeyeen ciidanku waxa ka mid ahaa dhaca hantida shacabka iyagoo beegsan jiray booyadaha biyaha u sida dadka xoolo dhaqatada ah iyagoo si qaas ah jidgooyooyin uga samaysan jiray tuulooyinka dhufays iyo toosan dheer halka ay fariisimo ciidan ku lahaayeen dhacdooyinka kale ay sameeyeen la xasuusto waxaa ka mid ahaa baadashada dadka faragelinta maamulka deegaanka odayaasha dhaqanka oo mararka qaar lagu qasbi jiray in ay saxiixaan waxyaabo aan maangal ahayn in muddo ah markii ay soo jiitamaysay hagardaamooyinka lagu hayay dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada ceelgaab waxaa loogu sii daray gacanka hadal lagula kacayo bulshada mid yar mid weyn iyo hooyooyin aan loo kala abdayin waxaan yidhaahdana su-aasheen sidii xuseen u sheegay dagaalada meeshaan ka dhacay annaga waxaana shacab ahayn hantidinad waynal ku yimid waanal ku laayey waanal ku dilay maal iyo magaad iyo dad waxa la dilan lama arko wax nooga soo celshay oo dooqasho noogu yimid oo ama dan noogu yimid midna lama arko marka taas horta taasi waa dagaalkii salkaas uga baxan hadda ku laabano dhanka dagaalka dad kala laayay ma waxa isugu jireen dad ma ku jiray dad caruur iyo haween waxa ugu jiray 110 mid jiray oo cajis naaga uur la dilacshay baa ku jiray oo la urdaxay lama xisaabi karo waxyaalaha lama xisaabi karo marka waxa garawsho nooga soo bershay ama wax noo soo celshay midna ma jirto 25 May waa bilowga dhacdooyinkii aan la mahadin qooroweyne oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada lababaar ayay ahayd goobtii ugu horeysay ee dad shacab ah ciidamada liyugu warmaha ku daraan galabka qooroweyne waxaa lagu dilay 2 wiil oo walaalo ahaa kuwaas oo sida la sheegay barkadu uu lahaa adeerkood lagu dul qaadaciyay barkadaana milkiyadeeda goor galabha oo casar ay soo weerareen dadkii shacabka ahaa ayaa yiri barkadaana kaale mana cabaysaan way laayeen 2 nin baa hadda meeshan ku dhimatay oo ku dileen ka bacdina barkada ma si xoogayna ku cabaan rabeen barkada naga daaya xooga markay yiraahdeen way laayeen ka bacdina dadkii shacabka ahaa weerar u kala baxsheen way laayeen naf iyo maal waxay lahaayeen intaba way banaysteen way dhaceen
meel kastay uga baxeen maalkii ama tukaamadii ama wixii miyiga yaalana wax alla waxay soo gaareen waxay laayeen iyo waxay qaateen ka dhigeen galabtaas dagaalku uu dhacay ama dadka lagu laayay ama ay bilaabatay ka horteed ma cabi jireen maraagta ma cabi jirin ma cabi jirin baabuur iyo biyo u keeni jirtay biyuhuna markaas waa u yaaleen daandaansi bay ahaayeen wax iibsi ma sameynayaan barkad inta dhaansadaan iyo lacag iska bixin waxay xoogaan ba ma ahana wax kale ma qaadan jirin waxba ma bixin jirin xoog ma ahana wax kale ma sameeyay may waata marka deegaanka maxay sameeyeen ma boob u geysteen markii biyo cabeen dawaa bilarqaysay hadii magaalaheed iyo hadii miyi aheed wax alla wixii yaala way bilarqaysteen wixii ay arkeen waa dileen waxa ka xasuustaa marka dagaalkii subu deegaanka ka wada dhacay ilaa bari ilaa galbeed dagaalka ka dhacay dagaalku jiidan oo haystay dad kale bini'aadan oo nala haystay malayn dagaal qabiiliyada boo ah oo niman dawladda qabiilinimo sheeganaya ahayeen ma ahayn niman maaragtay dawladnimo sheeganaya ma ahayn waa ka maxaad ugu baaqaysaa madaxweynaha dawladda deegaanka oo asagu kadib ninkii meesha laga eriyay mas'uulka ah deegaanka maxaad ugu baaqaysaa maadaama aad ka mid tahay dadkii deegaanka isla markaana dhib ku soo gaaray kii dambana ma naara kii horena baabaas uu nooga soo tagay waa ka maxaa ugu baaqaysaa marka dawladda federaalka oo hadda midda federaalka hadda wixii maaragtay anaka wax noo qabanaya wax hadda noo haya waan u baahanna dad shacaba oo duurjooga aan nahay sidaan duurjoogta u nahay wax noogu qabta wax noo dhiba maahan wax kale ma naarag intaa kadib markay ciidamadu falka geysteen waxay u soo hayaameen xeradii ay deganaayeen oo ku taalay deegaanka toosan dheer balse markii xaalku ku adkaaday ciidamadu way iskaga bixeen difaacyadii ay kaga jireen tuulooyinka dhufays iyo toosan dheer sababo la xiriiray tirada ciidanka oo yarayd awgeed iyagoo u ruuqaansaday lababaar oo ay ku malaynayeen saanad iyo ciidan badan ilaa habeenkii dadka deegaanku badankood waxaa waagu ugu baryay marxalad colaadeed halka dadka qaar aanayba dhulka dhabarka dhigin hadda waa maalintii labaad ee colaadda goorsheegtaduna waxa ay dul hoganaysaa 9kii subaxnimo waxaa lababaar ka soo aanbabaxaya ciidamo uu wato shaaliqa caligaab kuwaas oo ku wajahan halkii shacabka lagu laayay hase ahaatee inta aanay gaarin halkii ay doonayeen maxaa isbedelay korneelka iyo ciidamadiisu waxa ay la kulmeen shacab caraysan kuwaasoo ku sugnaa deegaanka tukalalmis iska horimaad kooban waxaa halkaa ku nafwaayay korneelkii ciidamada watay qaar ka mid ah askartiisii iyo dad shacab ah intaa kadib ciidamo caraysan oo ka amar qaadanayay cabdi iley ayaa waxa ay dagaal ku soo qaadeen deegaanada toosan dheer tukalalmis iyo balidhi galabkaa dad badan oo shacab ah ayaa lagu xasuuqay dhammaan deegaanadii ay soo weerareen ciidamadii layuugu sidoo kale waxay gubeen guryo masaajid iyo xoolo nool xaaladda deegaanka ayaa marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareertay waxaana la galay habeenkii labaad ee colaadda subaxii labaad ayaa isna ku bishay dagaal iyo qalalaaso hor leh waxaa isweer laga qabtay magaalada lababaar iyadoo dadka loo diiday in ay baxaan sidoo kale waxaa la soo xirxiray maamulkii magaalada waxaa mar kale la gubay aqallo iyo xoolo nool dadka shacabka ahu waxa ay ku qasbanaadeen in ay isdifaacaan hase ahaatee gurmadka ciidamadii ka amar qaadanayay xukuumaddii cabdi iley ayaa u socday si xadka bax ah iyadoo deegaanka lagu harqiyey ciidamada layuuga intoodii badnayd halkan waa qabalayga balidhiig oo ka tirsan degmada lababaar wuxuuna ka mid yahay deegaanadii aan booqashada ku soo gaarnay deegaankan waxaa lagu gowracay caruur badan waxaa lagu dilay hooyooyin dad waayeel ah iyo sidoo kale dadka shacabka xoolihii xitaa lagu gubay wuxuuna ka mid ahaa deegaanada dhibaatooyinku ka dhaceen dadka deegaanka oo la hadalnay ayaa inoo xaqiijiyey in deegaankan ay u dheer tahay oon iyo sidoo kale waxbarasho la-aan iyo sidoo kale arrimaha asaasiga ee caafimaadka uu ka mid yahay cabdullaahi dhacdadii balidhiig oo sida aan soo sheegnayba ahayd mid aan la mahdin ayaa waxaa dagaalka lagu soo daray qaar ka mid a ciidamadii laga qoray lababaar si dadkooda loogu xasuuqo balse badankoodu way ka biyo diideen arrinka magacayga horta ugu horreyn magacaygu waa cabdullaahi cali muuse waxaan ka mid ahay ciidamada hadda dhibaatada baan ku haya shacabka oo niyu booliska in muddo oo 2 sano ayaan ka mid ahay marka ugu horreyda waxaan ka mid ahay ciidankii dawladda deegaanka ee dalka laga qaaday deegaanka hadda aan ku noolnahay aan joogo ciidankii laga qaaday
yaan ka mid ahay oo lagu yiri dadka shacabka iyo dalka iyo diinta baad u shaqaynaysaa yaan ka mid ahay markii hore markii ugu horeydayna waxaan tababar ka galnay xerada ciidanka iyo booliska gaarka lagu tababaray Garabcas kadib deegaano kala duwan baan ka soo shaqeeyay labadaas sano oo ay ka mid yihiin sida Nogab oo kale Goday oo kale yaan ka soo shaqeeyay ciidamada new booliska qodobada laba qodob baan kaga soo tagay anigu oo dhibaato qodobka koowaad waxa weeye mid annaga nagu haysatay oo maadaama anagu aan nahay dad islaam diinta islaamka ku dhaqmo kuna dhashay qodobadaas waxaa ka mid ah ayadoo nala ogolayn wax la yiraahdo salaad ayadoo nala ogolayn qodobadan kaga soo tagay ka mid waxaa kaloo ka mid ah ayadoo markii xoolaha la qalanayo kale aan magaca la yiraahdo Itoobiya ha xorowdo lagu bireeyo midna Itoobiya ha midowdo baa lagu bireeyaa qodobadan kaga soo tagay taana waa ka mid deegaanka aan joogayna dhibaatooyin fara badan oo ka geysteen oo xasuuq ah oo dadka shacabka odayaasha waayeelka loo geysan jiray way ka jireen waan kaga soo tagay dhibaatooyinkan kaga soo tagay qodobka koowaad taa waa taa markii aan soo tagnay aniga waxa laga soo qaaday email waxa la soo qaaday halkan xududka la keenay xududka markii la keenayna dhibaatooyin fara badan oo ka geysanayeen oo dadka shacabka loo geysanayay ayadoo shaar loo gashanayo leeyahay waa shabaab waa nabadiid intii aan joognay anagu dhibaatooyin badan aan ku sameynay dadka kuwa la gowracay caruur kuwa faas lagu dilay guryo la gubay dhibaatooyin fara badan yaan anagu ku arkay oo dadka shacabka loo geysanayo saadarteed maadaama anagu aan arkay wax diinta islaamka ay sheegeen yihiin waxaan oo qalada saadarteed qodobadan kaga soo tagay kuwa weeyaan waa subaxii afraad ee hilankii colaada halkan waa dhagax bixis oo sidaasi kaga fogeyn tukalaymis oo horey la iskugu fara saaray weli qoraxdu godka baalka kalama bixin wadada iyo hareeraheeda waxaa ku sugan dad shacab ah oo difaacaya naftooda hase ahaatee waxaa soo wajahan ciidamo gaarayay sida la sheegay 1500 askari waxay u soo warmatunteen xasuuqa dad shacab ah waxaa bilowday dagaalkan oo u dhaxeeya dulmane isdifaacaya iyo dilaa ka gardaran hagaagda wadayaal waxaan soo gaarnay deegaanka dhagax bixis oo ka mid ahaa deegaanadii uu ka dhacay xasuuqii 2015 kuwii ugu waaweynaa ama laga dheehan karo kuwii ugu badnaa ee dadka lagu xasuuqay maati iyo caruur hooyooyin isugu jira iyo dad waayeel ah iyo sidoo kale dad badan oo markaa deegaanka u dhashay lagu xasuuqay hadda waxaan joognaa mid kamid ah xabaala wadaraadyadii oo aad ka dheehan kartaan shaashada dhabarkayga ah oo lagu laayay dad badan oo markaa jirkoodii inta budkii aan loo dhigin oo bud meeshan aan lahayn weli waxaa deegaanka ka muuqda dhibaatooyinkii dagaalku ku reebay iyo halaagii deegaankan ka dhacay waxaana la sheegaa inuu dagaalkani ahaa midkii ugu saacadaha yaraa ee lagu soo qaado shacabka xukuumadii TPLF ee markaa uu Cabdi Ilay hogaanka uga ahaa ciidamada layuuga xasuuqii loo geystay dadka shacabka bal waxa tafaasiil naga siisaa waxyaabaha aad ka ogay dagaalkan ka dhacay gaar ahaan dhagax bixis naga sii tafaasiil walaalaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi isha macallin waxaad kor joogto 3 tilaabo meesha 3 ina ku jirta si loo duugo wala aqoon bacgaduuday meesha kula jiraan annaga ilaahay cilmigiisa ilaahay cilmigiisa kula jiraan meeshaas aad arkayso 3 tilaabo 3 ruuxa ku jira caruurtaas yaryarka ah ay ugu dhagan adeeryaashood iyo aabayaashood iyo awooyaashood waaye meeshaan adiga duleedka ka xigta gabdhaha ku jira caruura ku jirta waayeelaa ku jira reebaba ku jira taas maalintii madoobeed aan u naqaanaa mugdiga ahayd ilaahay baan soo dhaafiyay walaal ilaahay baalka la yiraahdo wax dila waxna nooleeya laakiin si anaga dadaan cilmi lahayn baa sidaan noo galay kadib daqiiqado kooban oo dagaalku socday waxaa la baabi'iyay dadkii shacabka ahaa waxaana loo gudbay leynta marastii ay difaacayeen guryihii iyo aryo xaraysnaa waxaa la dhex dhigay bambaanooyin gebi ahaanba baabi'iyey goobihii lala eeg saacado kadib ciidamo ka socday dowladda federaalka Itoobiya oo warbixin qadan la siiyay ayaa iyaguna waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka toosan dheer oo ay ku xasuuqeen dad shacab ah xaaladda deegaanka ayaa noqotay mid allow sahal ah waxaana colaadan ka dhaga qaaday Soomaali iyo caalamka oo dhan xasaradii colaaduna waa ay sii siyaaday laba baar oo xarunta deegaanada dagaalku ka socdo ayaa dadkii lagu qasbay inay isaga baxaan deegaanka waxayna ciidan ku bilaabeen dhaca hantidii magaalada taalay dadkii la barakiciyayna waxay u xawawariyeen suubaan cidla
intaa kadib waxaa la laayay maamulkii magaalada sida cabdifataax faarax xuseen 5 tilaabo oo ahaa hogaankii nabadgelyada deegaanka, nuur cali daahir 5 daqiiqo, cali xayle dheri iyo cabdiweli siyaad oo ka wada tirsanaa maamulkii deegaanka, waxaana geyiga u dumay gabal kale oo qurux badnayn. waa subax kale iyo gumaadkii maatida oo weli socda. waxaa weerar lagu soo qaaday deegaanada Saaxo, Xindhowreed, Xirsiile iyo Balidaleel. dhammaan goobaha dagaalka ciidanka Cabdi Ilay ku soo qaadeen waxaa ku sugnaa dad shacab ah oo u badnaa haween iyo caruur, waxaana loo adeegsaday bambaanooyin iyo rasaas noolnool. bulshada intii ka badbaaday weerarka waxay u kala firxadeen kaymaha, waxayna sababtay in dad waayeel ah iyo caruur aq ugu geeriyoodaan duurarka, halka dadkii laga barakiciyay Lababaar ay u huleereen deegaanada koonfurta sida Qorof, Qalqallooc iyo Baar Mahgoog oo ka tirsan gobolka Shabeelle. intaa kadib waxaa bilaabatay waan lagu hakinayo gumaadka shacabka, waxaana gogol nabadeed laga furay Lababaar. dib u dejinta dadka deegaanka oo qaadatay muddo ku dhow 3 bilood ayaa waxaa iska kaashaday qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada militariga federaalka Itoobiya, odayaasha dhaqanka iyo qurba joogta deegaanka ka soo jeeda. balse markii dadkii ku soo noqdeen goobihii ay iskaga qaxeen, xukuumadda Cabdi Ilay waxay bilowday qorshe kale oo xeel dagaal ah. waxaa dadka deegaanka qaar ka mid ah lagu eedeeyay in aysan ka mid ahayn muwaadiniinta oo iskaga baxaan deegaanka. waxaa la sameeyay saldanad loo dhiibay nabadoon Muuse Xaashi Canshuur Muuse Goodir oo loogu caana shubay suldaanka deegaanka. waxaa dadka lagu qasbay in ay keenaan 100 geel ah oo uusan raali ka ahayn suldaanka lagu la faruugayo. waxaa qasab lagu askareeyay qaar ka mid ah dhalinyaradii deegaanka si dadka la iskaga hor keeno. shacabkiina waxaa laga aruuriyay hubkii si qasab ah. waxaa la burburiyay goobihii waxbarashada, gaar ahaan dugsi quraanadii ka oodnaa baadiyaha. deegaankuna waxa uu galay xaaladii hore ka adag. muddo 3 sano ah oo gumaadka lagu hayay dadka shacabka ah, waxaa burburay nidaamkii daaqiliga ahaa ee Cabdi Maxamuud Cumar, waxaana deegaanku galay marxalad kale oo tii hore ka duwan. waxaana ilaa iminka jirta colaado beeleed dhan kasta ka horaya deegaanka, taa oo ayna waxba ka qaban xukuumaddii bedeshay maamulkii hore. waxaana deegaanka hadda xaaladiisu tahay mid ka sii daraysa marba marka ka sii dambaysa. kama jirto Lababaar iyo nawaaxigeeda wax maamul ah. goobihii waxbarashada ee xukuumadda Cabdi Ilay yagleeshay qabalayaasha iyo degmadaba waa la burburiyay. nolosha caadiga ah ee dadka deegaanku halka markii hore ay ahayd 50%, hadda waa 10% iyo wax ka hooseeya. Cabdulaahi Maxamed oo ku nool gob Dhagaxbuur, santarka Dhagaxbuur ka jira. baahiyaha deegaanka ka jira colaad ayaa ka jirta, mid hore iyo mid dambe iyo mid hadda intaba. mid hadeera oo daaqii xirtay oo daaqii soo gaabisay oo aan meeshii la kala digi karin. magacayga waxaa la yiraahdaa deegaanka wax dhibaato badan oo hadda laga sheekay karin oo aan soo tiro koobi karin in badan ka dhacay. markuu ugu horeyda waa dadku waan fahansan yahay adiga 250 qof agtiisa dad deegaanka lagu laayay. dad marasa iyo ilmo iyo hooyooyin iyo haweenay u badnaayeen. hadda ninka hadda aniga waraysiga ugu horeeyay goomankiisa waa arkaysa waa deegaanka waxa lagu dumiyay. ha ahaatee dhibaatooyin badan iyo dardarooyin badan soo gaaray. wax badan oo cadiifooyin oo badan baa wadanka ka dhacay. dad badan lagu laayay, haafrooyinka waa la xasuuqay, ilmiga waa la xasuuqay. haddana waxaa nagu dhacday inaan dadkanagii deegaanka kala jiray ee Soomaaliya jiray wax caawisa aan ka helin oo jidkiina laga gooyay. isku socodkii ganacsigii nooc kasta waxa noqotay. marka deegaanka wax tiro badan oo dhibaatahan aan la soo kulmaada koor. markadan sida mar la ii sheegay ciidanku waxay deganaa jireen dhufays, markadan waxa kamid ah barkadiya cabi jireen wax lacag ma bixin jirin qarashaad. ma wax qarashaad ma jiro wadanka xoog iskaga jiray. xukunkii hore xoog xukunku in ilay xukun gumeysi xoog waa ma la weydiin karin. dhacday oo la xiray madaxweynihii haddana uu cadaalad sugayahay oo maxkamadda la keeni doono. maxaad xukuumadda dowladda Soomaaliyeed ku baaqaysaa oo aad ka codsanaysaa maadaama aad tihiin shacabka deegaanadan degan? waxaan ka codsanaynaa deegaanka danahay nabadgelyo
caafimaad daawo la'aan biyo iyo cadaaladba cadaalad darro ka tabanaysaan maamulada qaar ma jirtaa maamulka degmada iyo heer gobol maamulka degmada oo gobolka Shilaabo oo baxa u darnaa cadaalad darro xaquuqdanadii ah oo cagta naga saareen oo dhibaato badan inala soo mareen haddeertaana waan ugu hayaa naf iyo maal wax allaala waxaan leeyahay naga qaateen baahiyaha guud oo adduunyada looga hadlayo baahiyaha guud oo adduunyada looga hadlayo waa colaad shaydaan furfuray oo uu sameeyay oo shaydaan furay iyo risqi alla aan uga barnay oo naga maqan kii muslimnimo oo la isugu dhawaa jirana inaanan haynin colaadda meesha la yidhaahdo markii hore taba shaydaana furay shaydaan qarqu jaruuftay markuu qajaruuftana waa isla kaceen waa waxa qoriga garabka ku sida ugu raraya odagaanaan iska dayno waxba mausa abuurinayna la dhihi maa marka adigoo da'aadaada noo sheeg aniga da'aadaydu waxa weeye 84 go'a kow ah 84 go adoo jira haddana nabadgelyo darrada deegaanka jirta awgeed ay qori boosh qaaday qori iyo nabadgelyo la'aan ka jirta kor iyo hoosba hadalka u fiirso kor iyo hoosba ka jirta qoriga booshkaas ugu raray colaadaas waxa ku saabsan colaad beerada colaad gaar ah oo argagaxis la xiriirta colaadaas waxay ku allaana waxay ku salaysan tahay wax sheegi kara lama arko geel la kala dhacay kuma salaysan waagi hore waa la kala dhici jiray ma taqaanaa xoolo la kala xaday kuma salaysan saadii soo day kartaa waxay ka socoto maanta maanaadi soo daydaa ma socota sidaan ognahay deegaankan 6 sano ka hor waxa ka dhacday colaado la xiriiray xukuumadda TPLF ee u matalaysay gobolkan ama Cabdi Maxamed Cumar ciidamo uu garwadeen oo ahaa colaadii maxaad ka xasuusataa dagaaladii ka dhacay deegaanka New Bolis shacabka maxaad ka xasuusataa dagaalkii New Bolis iyo shacabka waxaan ka xasuustaa in iska horamaan dhacay iska horamayna dhacay ma maqashay New Bolis tiraahda anagu waxaan hadal gubeer ma taqaan horta gubeer dawladda la yiraahdo gubeer dawladda la yiraahdo sharci dawladeed oo sharci gubeerra ku shaqeynayna New Bolis tiraahdo waa noo hadeer socodkaan hadda dhow oo nidaam dawladeed ku shaqeynaya kuwii hore qaab sidee ku shaqeynayeen waxay ku shaqeynayeen goosa andhiraw ogaadeen سنة ذنيه كرين لما قبضوا برتا اللي يقولوا على لما قبضوا ما تقلبها لما قبضوا والمنور علي عمر برتا أنا اللي يقولوا على إبراهيم عبد الله ما تقلبي ولا يقولوا على وحي قلب صدين سلكعن إلا كعيو هل كاس يداد على أرض كلها أقلب صدين هل ما شو سوى تاجنت أرنتاس كنا هذا qaabkii wuxuu ku gabagaboobay in la isu tabar waayan jacayl jirin annaga xukun min la magacaabo cumar maarigma noogu horreeyey foorsaan banu ahaa magaxweynaanu ahaa in lagu maalaal raba meesha ninka jagada ninka ka soo horjeedaa shanaan ahay markii loo dhiibayay in ما تقانا فرصان بالنمو قالوا هيست عمر مارينا dadku wuxuu ka sheegay inta codleeyeen codlo looga dhaqaaqay nin codlo looga dhaqaaqay cadawna haysto soo doon horta ma isaga hadlaya waa doqonaa la yiri waa ta suldaan la yiri suldaan oo boqol halaad iyo alaabta loo kaxay xawno saayidi waxba nooma saayidi waa ka darayba isaga maxaa haysta maxaa lagu ku dhaganaa suldaanka suldaanka waxa lagu ku dhaganaa waxa lagu ku allaale kii la geeyo cayn kastaba ha ahaadee waxa lagu ku dhagan inuu yahay magacyeel uusan danaa asagoo uusan marsi kale kana hadli karin maadaama hadda wax maamul aysan ka jirin deegaanka maxaad ugu baaqaysaa dawladda heer federaal Itoobiya dawladda heer federaal iyo waxaan ugu baaqayaa nabadgelyo ya nabadgelyo meeshii ay nabadgelyo deegaankan degan laga shaqeeyo nabadgelyada war hadiga hadalkiisa mar horeysan ka hadla dadka waxaan ku yiri hadda dadka la Soomaaliga la saa'iri weydaan midda kale dara amaana waa gaale hadday Soomaalidu isfahmi waayaan
nishaan malaha wuxuu yidhi cismaan cabdulow ma habaartaa huu yidhi ogaadeen haahane maxaad ku habaartaa ii sheeg uu yidhi iimaanka alla ka qaada ilaahu iimaanka geliya idhaahda markaasuu yidhi u ducayday wuxuu kuugu fadhiya ii sheeg 3 qodob oo ogaadeen iigu fadhiya haddii la waayo 3du waa ii imaanayaan ku yidhi bahraha gaduudana u yaryaa libaaxno weyn oo ogaadeen ku sii jeeda inay ugu soo jeesanayaan marqaato bayga dad iyo dunyaba ay leefayaan anoo naftu ahaydo oo baahi iyo gaajo alla ii dhiibi aqaloodan haddaan ku soo dhacana barxaya biyaa lay siinaya naf ma ii tahay haddii muslim gaalo loo kala baxana ogaadeen waa nin muslim cabdulaahi farxaan cabdulaahi balanballe LM24 TV balidhiig